Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay dowladda Pakistan inay khiyaamayso Maraykanka iyadoo balaayiin dollar gargaar loo siiyo. Madaxweyne Trump oo isticmaalay qoraalkiisii ugu horeeyay Twitter-ka uu soo dhigay sanadka cusub ayaa Pakistan waxa uu ku eedeeyay gabaad inay siinayso argagixisada. Dowladda Pakistan ayaa Twitter-kaasi uu soo dhigay madaxweyne Trump si cadho looga jawaabtay waxaana ay sheegtay in dhammaan deeqaha la siiyo si fiican loo maareeyo. Madaxweyne Trumpna uu ka gubanayo jabka uu kala kulmay wadanka Afghanistan. Maraykanku si doqonnimo leh ayaa uu Pakistan u siiyay 330 bilyan oo dollar oo deeq ahaan loo siiyay 15 sano ee la soo dhaafay. wax aan been iyo khiyaano ahayna kamaanaan helin ayagoo u maleynaya in hogaamiyaasheedu ay doqmo yihiin ayaa Twitter-kiisa uu ku qoray madaxweyne Trump waxaana intaasi uu ku daray gabaad ayay siiyaan argagixisada Afghanistan aanu ku ugaarsanayno waxaanu ka helnaa caawimaad aad u yar taasina ma sii jiri doonto ayaa uu raaciyay madaxweyne Trump. wasiirka amuraha dibadda wadanka Pakistan Khawaja Asif oo la hadlay warbaahinta wadankaasi Pakistan ayaa waxa uu sheegay in Pakistan ay horaba u cadaysay wax dheeraad ah inaanay u qabanaynin Maraykanka waxaana intaasi uu ku daray in madaxweyne Trump ay ka muuqato inuu ka gubanayo guuldarrada uu kala kulmay wadanka Afghanistan waxaana intaasi uu ku daray Khawaja Asif in dowladda Pakistan ay uga digayso madaxweyne Trump inuu guuldarrada uu kala kulmay dalkaasi Afghanistan aanu ku canaananin dalkooda. dhanka kale xukuumadda wadanka Pakistan ayaa waxay u yeedhay safiirka Maraykanka u fadhiyay magaalada Islamabad si ay wax uga weydiiso sababta madaxweyne Trump uu hanjabaadda Pakistan ka dhanka ah ugu qoray Twitter-ka. yeermada safiirkana waxaa xaqiijiyay mas'uuliyiinta safaaradda Maraykanka ku leeyahay magaalada Islamabad